1902 markay marayso qarnigan la soo gaadhay ayuu Herzl mar kale isku dayay inuu Cabdilxamiid la kulmo deyntiina waa ka bixinaynaa dhibtaydan haysato dhan waa idin ka saaraynaa noo ogolow inaanu degi karno Falastiin wuxuu isa soo taagay dhulka kan taaka kamida inaan idin siiyo ma awoodo dhulkan anigu malihiya ummadda le buu yiri dhiigeedii baanay ku furatay yahuudi malaayinteeda hayska haysata buu u jawaabay waqtigaa wixii ka dambeeyay 1903 markay marayso ayay bilaabantay oo dawladdiina aad u daciiftay yuhuuddu inay qarqarsoodi ku soo gasho xaakimadan hoose ee meelahan jooga in la laaluusho oo deganaanshiye la heli karo markaasaa laga sameeyey kiibutiskii ugu horreeyey kiibutisku waa sistemadii ay ku soo degeen yuhuuddu meesha tan wax weeyaan koox yuhuuda community baa isa soo raacaya dhul yar baa la siinayaa iyo beertaasay wada beeranayaan yaddu caamila bay ahaanayaan qaanuunkooda isku xukumayaan meeshana kama baxayaan waa giita yar oo beeraleeya giitadii koowaad oo iskaashatadaasi ah ayaa laga sameeyey 1907 1909kiina waxaa bilaabmay yaava dhankeeda waqooyi magaaladan Tel Aviv hadda la baxday ayaa la bilaabay iyana kiibutsiyadii ku xigay yahuuddu markaas xisbi taraqi wal ittixaad ayay xoojiyeen Mustafa Kemal Atatürk iyo qoladii uu hogaaminayay dabeetana 1908 baa Cabdilxamiid la inqilaabay muddo yar kadib shacabka kacay thawra shacbiya baa dhacday qasab baa loogu soo celiyay boqorkii madaxtinimadii laakiin ciidamo uu Mustafa Kemal Atatürk ka talinayay oo uu hogaaminayo nin Ciraaqiyaba nin Caraba oo la yiraahdo Mahmoud Sami Basha ayaa soo dhaqaaqay wadankii qasab bay ku qabsadeen ماشي جمهورية باللو بدلي خلافة إسلامية هيد 3 مارس كل سجال بقول يا أفريقيا لبعتكي باللبابية مخططات كي يهودية كوي صهيونية دو مركز بلابمي هذا واحد ربع هذا وين كور ربع وما هي حديد ككد حياة يهود هي يوروب أما حديد كد حياة يهود هي إسرائيل sidee bay ugu qanciyeen Israa'iil Yurub inay sidan u taageerto ay waajahow noqdaan haddaynu eegno masiixiyadii hore siiba labadii qole ama orthodox ama catholic ahaa waxay rumaysanaayeen ciise inuu sixiroola ahaa bidcoola ahaa fitna dawladda uu ku wado hooyadiina inay zaaniye tahay dabeetana maxkamadoodii la odhan jiray sanhadariyiintu waa 70 oday oo 70kii nebi muuse raacay bay ku qiimeeyaan fadlan hala aamuso haddaydan aamusi karaynin waxba sheegi kari maayo qof waliba isagoon ha aamuso cidna iyo aamusiini ma u baahan tahay in aad dalbato gawaarida raaxada ee online-ka laga helo haddaba haddii aad joogto Nairobi la soo deg abka Faras adiga oo ku qoraya Play Store-ka ama App Store-ka Faras mar walba abka Faras fur oo ku qor halka aad u socoto iyo nooca gaariga aad qaadanayso gawaarida Faras degdeg ayay ku geynayaan halka aad u socoto shirkadda Faras waxa ay ku siinaysaa qiimo dhimis 15% sidoo kale ka faa'iideyso ofarada Faras ay bixiso toddobaad walba adiga oo dooranaya new offer maxkamadda ilaahay nimanka yuhuudeed oo ka kooban 70 oday iyo kaahin isugu jira iyo boobkooda ama wadaadkooda ugu weyn ayaa waxay go'aamiyeen nabiyullaahi ciisa iyo laba tuugo kale saddexdaa in la salbiyo nabi ciise iyo laba tuuga baa markaasi la salbiyey iyagu may salbin karaynin
ninkii romaniska meesha uga talinayay bay u tageenoo bilatus la yidhaahdo waxay yidhaahdeen waxaanu gaadhnay xukumaan saddexdan qof in la salbiyo waxaanay lahaayeen iyagu xukum daatiya waxuu eego hoose boqorkaasi wuxuu ku yidhi markaa anugu waxaan u arkayaa inuu bari yahay ninkan aaleedin ha la salbiyo ee hubiya arrinka kan waxay yidhaahdeen weedha caankee ah damuhu calayna wa calaa awlaadina dhiiggiisa annagaa dusha ku qaadnay iyo carruurtayaduba ee ciise ha la dilo waana ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم يدو يهودي أي ساسي اعتراف سنتي باعترافهم إليين عيسى وادل هو يدينا يعيبتك الشيغيان تلمود كودنا وقرن يحي عيسى المسيحين دينتي يهودا كر الدوبي وسنة معابده مسيح كستو دوني دا كل نولنا إنه والثاني عدو لله ولليهود يهيبة تلمود كودا قرن وحس قبل الله مركز هدو أرقو سيدا يهي هدنا ما أنت كريستان كوينو تاقيرا حقاي كصواب حضي عداء شديد بأول حي يهود قرآنكنا واكت المامية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود مسيحيين تمركز ميشا هيستين ويكسارين بيت القدس يا فلسطين يا وحنودن وحكسو عليي لح بقول يا دوري طبنكي دولة بيرشيا أي كسو عليسي يهودي لسعتي وحلا يدادا إلا لحدا كونوا كريستني قدس كده هذا كده لين بالله يدادا كنيسة القيامة ندبا يقبضسية وحدب تبنية سنة كدب سوعلي هيراكليس إسنا واكا أرغوتون من كينا والاي كريستن ميشو كسوعلي يهودنا وكساري فلسطين دمان تدبا وحا يهودي اللي باتصور نقطبين الحروب الصليبية وقت جدي لكن حروب الصليبية وكريستن باكو صور نقضي يهودي ينوى وديدين مركا قرى تاريخ دا الله وقلادي ان فلسطين يمادان وصلاح الدين الايوبي وقت يسي مركي اي شوكتي انت اكدب هذا وحصاب حي مذهب عصب او دينيت او بروتستانت الله يداهدو مذهب كاسي عصبي وحولي من فكرة يهودين أمانيين واحد دنبيا إن أنكركوا الله صارين بل واحد كدر قيان حتى فاتيكان إنه كان نقضاء إنه كبرية ليهود دم المسيح سيدايتاني وضع ذي مركة dhismahan casriga idiin muuqda waxaa hirgelinaysa shirkadda Marwa Homes gurigu waxa uu ku yaala xaafadda Southsea ee wadada Warshabaara gurigu waxa uu ka kooban yahay 4 qol iyo qolka shaqaalaha 2 qol iyo fadhi oo ah guryaha alaabta lagu kireeyo ee faanishka waxa uu leeyahay parking 2 wiish ceel matoor iyo supermarket agaarka guriga waxa ku yaala masaajidyo iskuulo iyo waliba isbitaallo shirkadda xafiiskeedu wuxuu ku yaalaa xaafadda Southsea daarta Taha Heights dabaqa 14aad wixii faahfaahintaas dheerna waxaad kala xiriiri kartaa eber 722 69 amaba eber 7 eber 69 Marwa Homes Limited horseedka shirkadaha dhismaha